dadkii ugu badnaa ee abid ka barakaca deegaanka Ballicad ee gobolka Cayn ayaa gaadhay baadiyo dhaca xadka Itoobiya oo u dhow deegaankaasi Ballicad kadib markii 14 bishan ay qabsadeen deegaanka Ballicad ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland. Barakacan ayaa yimid xilli xiisado colaadeed oo ka taagan deegaankaasi ay kordheen iyadoo dadka deegaankuna ay ka cabsi qabaan in dushooda lagu dagaalamo. Saxardiid Bare Bulaale oo ka mid ah odayaasha deegaanka Ballicad ee gobolka Cayn ayaa ii sheegay in dadku ay ka barakaceen cabsi ay ka qabaan in lagu dul dagaalamo. ما كان قرية ينادي اسمه قرية يقول عمار بيجي وكتري وقريه وكتري وعيدوا ما قرية meelaha dadku tageen waa xagee magacyadooda bal noo sheeg wuxuu jira ilaa 7 kilomitir meesha u shaysa idaashaan galaan biyalaan galaan gobolaan galaan guryahoodii ka barakacay laga shaar magaalada dadku waa magaaladii dadka barakacay magaaladii weyn iyo midii u dhawaa Mahad Maxamuud Cali oo jooga deegaanka Ballicad ayaa ii sheegay in ciidamada Soomaaliland cadaadis badan ku hayaan shacabka ku sii harsan deegaanka Ballicad halka qaarkoodna ay carareen. dadka walaahi dhibaato u dhiman oo jirta ma jirto wax dhiba oo dadka u dhiman ma jirto dad maata oo barakacay oo qaxay waxay ka qaxayaan magaalada waa la qabsaday ciidan baa qabsaday runtii aad u fara badan oo aad xoog badan oo ciidankaasi marka wuxuu samaynayaa si dhaqan xumo ah oo maaragtay dhaqan xumo ah magaaladii bay soo gelayaan oo magaaladii soo dhexgelayaan xoolihii bay baaxinayaan maatadii bay inay banaanka u baxdo diideen magaaladii bay saa ugu goodi wareegayaan barkadihii bay fadhiyaan oo aan la gelaynin marka dadkaas maatadii marka nafahooda waxay ula firdhanayaan in meesha dagaal ka qarxo ay maaragtay dhibaato loogu geysto oo maaragtay lagu laayo meesha dadku naftooda la cararayaan. Mahad ayaa intaa ku daray in dadka barakacay aysan qaadan sahay ku filan deegaanada ay ku barakaceen ay yihiin dhul oomana ah taasoo sababi karta in dhibaatooyin badan ay la kulmaan. dhibaatada ay la kulmeen ugu badan waxaa weeye horta dhaxan iyo hoy la'aan cunto la'aan oo cunto ma qaadan oo dadkii dad si xor ah u qaatay wixii adeega ay haysteen may ahayn dadkuna nolosha ay dadku meeshu waa degaan maaragtay magaalo weyn maaha nolosha la iskaga noolyahay waxay tahay in qofku baqaar wax ka soo qaato waxa uu caawa soo qaatay majority dadku ay caawa karsadaan marka inta badan dadka cid nolol ay isku kafayn karto la qixi kartaa ma jirto dadku waxay ku noolaayeen adeeg ay meherad ay ku xidhan yihiin oo biil ka qaataan isla markaa ma haystaan cidda maaragtay haysata wax ay ku noolaan karaan oo la qixi kartaa ma jirto marka xaggii nafaqadii biyihii hoygii wax ka maqani ma jirto dhibaato ummadaas ka maqani ma jirto dadkaas. Aamina Axmed oo hooyo dhashay 6 caruura kana mid dadka ka barakacay tuulada ayaa ii sheegtay in dhibaato badan ay la kulmeen barakacayaasho. meeshaan joogo alalaba la dhahaa Ballicad dushiisa weeyar 3 dalalka joogo waxaan ku joognaa reero aan isidi anigu halkaa waxaan ku joognaa reero aan isidi ilaa 500 way gaadhaan gabdhaha naga umulay daawo waa u weynay dumarku waa nugul carruurtii biyo la'aan ciidanka uu hogaaminayo ninkaas Siilaanyo ee SNL ee aan naxdinta lahayn baa na barakiciyey goobtaasaanu ku eegnay 3 habeen halkaasaanu u hoyanay anagu waad garanaysaa ubad yaryar oo biyo la'aan raashin la'aan gobadh hooyo ah oo mushay waad garan kartaa waxa ku dhici doona ilmo yar oo keliya oo la xambaarsan yahay oo bukaan iyo shuban asiibay waad garan kartaa waxa uu noqon karo meesha hooy la'aan baa naga haysta guryahayagii waa ka qaxnay ciidanka manaxaanka ah baa nala keenay Siilaanyo SNL nagu soo hogaamiyey abidkaya waxaan arag baa nagu dhacay. Zainab Yuusuf oo iyaduna ka mid ahay dadka barakacay ayaa sharaxaad ka bixinaysa nooca ay tahay meesha dadku ku barakaceen. walaal waa meel dooxa iyo cadaadis ku baxday oo kayna oo dugsi iyo diabidnayaad waxaan nageeyay qaxda nageeyay markii lagu soo dhacay waxaan arki jirnay oo aragnay ugu yaraan 50 gaari oo ka isku ayaan aragnay horeera naga
biyo maanu qaadan daad maanu qaadanin dad مثلا أنا قاعد أقول نبى نقول شيء أنا يوم أنا سنعرف أنا أبغى جد حتى كلا عرارة ها ولي جاي ما نقول ولي جاي ما نقول إلى أن نبدأ نفديني وأنا نعرف بايلاي نقول كأني تبغى نبدأ وأنا سنعرف أنا أبغى كلا قحة خضر عول إسماعيل راديو دلشر بوهود لا